بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. xafiiska xeeladaha guud ee qaranku waxa uu gacanta ku hayaa baarista dad ku eedeysan dambiyada deegaanka oo ay ugu horeyso jarista dhirta, gubista dhirta, ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha, ka ganacsiga iyo dhoofinta duurjoogta iyo kalluumeysiga sharci darrada ah. xafiiska xeeladaha guud ee qaranku waxa uu xog hordhac ah ku hayaa in eedeysanayaasha qaybtood ay joogaan wadanka gudihiisa, qaybta kalena ay joogaan wadamada dariska ah iyo wadamada carabta oo ah meesha loo dhoofiyo dhuxusha ayna sii marto, kuwaas oo ah shabakad isku xiran oo ganacsiyo kale ku dhex qarinaya dambigan si loogu arko inay ka biic mushtarayaan ganacsi xalaal ah, iyaga oo mararka qaarna dhaqaya lacagaha laga sameeyo falalkaas si loo tirtiro raadadka lacagahaas. xafiisku waxa uu sidoo kaleeto la socdaa in faa'iidooyinka laga sameeyo falalkaas sharci darrada ah in ay qaybtood gacanta u galaan argagixisaduna ay qayb ka tahay suuqa ganacsiga dhoofinta dhuxusha. xafiiska xeeladaha guud ee qaranku waxa uu u digayaa ganacsatada isku dayeysa inay faa'iidooyin ka raadiyaan falal liddi ku ah deegaanka, taasoo halis weyn ku ah wadankeena sanad kastana sababa in deegaanka iyo bii'ada Soomaaliya uu isbedel ku dhaco, ayna soo laalaabtaan abaaro, daadad, nabaad guur, xaaluf oo lagu waayo dad iyo dunyaba. xafiisku waxa uu baaris qoto dheer ku hayaa kiisaskan, waxa uuna ku daba jiraa dad ku eedeysan dambiyadan. maxkamad ayuuna hor keeni doonaa marka ay baaristu soo gabagaboodo si dadkaas loogu qaado sharciga. xafiiska xeeladaha guud ee qaranku marna ma aqbali doono in ganacsi laga raadiyo falal kasta oo liddi ku ah shuruucda iyo xeerarka deegaanka. waxa uuna xafiisku farayaa hay-adaha baarista inay soo qabtaan sharcigana hor keenaan qof kasta oo gala dambiyada deegaanka, iyaga oo ku ugaarsanaya meel kasta uu joogo qofkaas, lana kaashanaya hay-adaha caalamiga ah ee ay khuseyso arrintaas si dadkaas loo horkeeno maxkamadda awoodda u leh qaadista dambiyadaas. dhanka kale, xafiiska xeeladaha guud ee qaranku waxa uu sidoo kaleeto gacanta ku hayaa baarista dad ku eedeysan faldambiyeedka daabulka iyo ka ganacsiga dadka. xafiisku wuxuu gacanta ku hayaa cadeymo hordhac ah oo ay ka mid yihiin baasabooro, dukumiintiyo qaybtooda la been abuurtay, kuwaas oo muujinaya in ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiin dowladeed oo jagooyin kala duwan ka haya dowladda. xafiiska xeeladaha guud ee qaranku wuxuu sidoo kaleeto u digayaa qof kasta oo isku daya inuu faa'iido ka raadiyo daabulka dadka. waxa uuna farayaa hay-adda socdaalka Soomaaliya inay ka hortagaan daabulka iyo ka ganacsiga dadka, ayna qaadaan tallaabooyinka ku habboon si loo xaqiijiyo in dadka aan lagu daabulin sifo sharci darro ah. ugu dambeyn, xafiiska xeeladaha guud ee qaranku waxa uu shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay la shaqeeyaan hay-adaha baarista iyo xafiiska xeeladaha guud ee qaranka, gacanna ka siiyaan soo qabashada dadka ku lug leh dambiyada deegaanka, daabulka iyo ka ganacsiga dadka si waafaqsan xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo xeerarka kale ee dalka. waad mahadsantihiin, wabillahi tawfiiq.